iyadoo maalmahan ay ka wadeen kambaniga Moomin Group deeqda warbixin ay siinayeen qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala gobolada Soomaaliya ayaa maanta si taal la mid ah waxa ay u guddoonsiiyeen deeqda waa isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir ku yaala magaalada Muqdisho. deeqdani ayaa ahayd mid loogu talagalay daaweynta dadka u aseebay cudurka shuban biyoodka oo maalmihii la soo dhaafay ka dilaacay gudaha dalka Soomaaliya. isbitaalka ayaa xilligan la daaladhacaya tabardari dhanka daawo la'aanta waxaana soo buuxdhaafiyay dadka u aseebay cudurka shuban biyoodka oo ka kala imaanayay gobolada dalka Soomaaliya. ugu horeyn ayaa halka waxaa ka hadlay Cabdiqani Cali Axmed maamulaha qaybta daawada ee Moomin Group isla markaana sharaxaad ka bixiyay daawada maanta ay soo gaarsiiyeen isbitaalka Banaadir. Allahu rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. ilaahay baa mahad iska leh waafajiyay maanta inaan dhex joogno isbitaalka weyn ee Banaadir oo ah runtii isbitaal loogu adeego bulshada Soomaaliyeed ee danyarta ah. haddana uu isbitaalka la daaladhacayo daawo yari ayna ku jiraan bukaan fara badan ee cudurka shuban biyoodka uu soo ritay lagana keenay gobolada ku dhadhow dalka iyo gudaha magaalada Muqdisho. runtii waxaanu ka soconaa shirkadda la yiraahdo Moomin Group qaybteeda dawada oo runtii maalmahanba ku hoolaneed isgarab istaaga shacabka Soomaaliyeed ee tabaaleysan. dawooyin ayaan isbitaalka maanta u keenay oo ah runtii dawooyinka maanta loogu baahi badan yahay oo ah dawada loo yaqaan ringar ama cusbada oo shuban biyoodka maxaa la yiraahdaa aan isleenahay wax badan ayay ka qaban doontaa. shirkadda waxa ay gaarsiisay dawooyin noocan oo kala iyo kuwa ka badanba qaar kamida gobolada Soomaaliya waliba kuwa ugu badan ee cudurka noocan oo kala uu ka jiro ay kamid yihiin gobolada Bay iyo Bakool gaar ahaan isbitaalka weyn ee Baydhabo oo aad ogtihiin xaaladda uu ku jiro. runtii waxaana la taagan agaasimaha guud ee isbitaalka Banaadir Dr. Cabdirasaaq asagaas ayaa dawada shirkadda wakiil uga noqonayo asaga ayaana soo gaarsiinay maadaama maamulaha isbitaalka uu yahay asaga ayaan hadda ku wareejinaynaa. runtii marka loo fiiriyo tirada ee loo baahan yahay oo ay ka badan tahay waana aaminsanahay laakiin gargaarka ay shirkadda bixinaysa inta kuma ekaan doona hadduu Ilaahay yiraahdo gacmo badan ayaana jiri doono waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa cudurrada iyo abaarahaba inuu naga dul qaado asaga awooddaas oo kaliya gacantiisa ku jirta. dhanka kale waxaa ka mahad celiyay agaasimaha isbitaalka Banaadir Dr. Cabdirasaaq deeqdani daawo ay maanta ay soo gaarsiiyeen Moomin Group of Company. mahadis maanta in Moomin Group Company ay soo gaaraan ay soo gurmadaan ay dhibka wax ka dareemaan inkastoo ay sugayso dhul badan oo sugayo oo dhibka ka jiro. haddana isbitaalka waxa weeye meesha dadka ugu liita la keenay dadka oo lagu qaban karo meelaha wax dhibaato ma leh laakiin meel kasta in la gaaro waxa la rabaa isbitaalka waxa la keenaa dadka aad u liito oo fuuq baxay qofka waxa laga yaabaa inay qaadato 5 kartoon oo biyo ah kaligeed la siiyo maartay fuuq baxa jirka waxa waa qofka dhiigga fariisanaya biyihii ka baxay marka waa ilaahay mahadiisa aad ugu mahadsan yihiin waxa weeye ilaahay khayr ha ka siiyo waxa la rabaa saas inay soo dadaalaan dadka kalena ha dhageystaan oo moogtahay ayagana waxa soo qaadaan hala keena dadkiina waa dhimanayo oo hortiina ku dhimanayo this is waxa waaye waa wax oo moogtahay dib moogtahay anaga gacmaheena lagu ku keensanay abaarahan iyo ilaahay aan noqono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ma aha markii ugu horeysay ee deeq dawo ah ay gaarsiiyaan isbitaalada qaar kambaniga Moomin Group wuxuuna maamulka Moomin Group sheegay in uu inta uu ku ekeyn doonin deeqdani daawo uu siinayo dhammaan isbitaalada ku yaala gudaha dalka Soomaaliya. Ibrahim Cabdi Karin Cismaan TV caalamiga Somali News TV magaalada Muqdisho.